dabaaldeggaasi arkaysan waa shacabka deegaanada gudmo biyacas daryale iyo shalcaw ee galbeedka gobolka Sanaag oo iskugu soo baxay inay taageero u muujiyaan musharaxani warsame sulub oo u sharaxan golaha baarlamaanka ee gobolka Sanaag waxaana ay sheegeen inay dooranayaan taageero buuxdana u hayaan musharaxani iyo xusbiga ay ka sharaxan tahay ugu horeyn waxa deegaanka magaalo xeebeedda shalcaw warbaahinta kula hadlay waxa garadka iyo madax dhaqameedka musharaxani warsame sulub oo sheegay inay hore iskugu raaceen taageero buuxdana u hayaan ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay caaqil Saleebaan Saalax Fagaase bismillaahir rahmaanir rahiim hadii aanu nahay beesha Basanbuur inanta la yaado hani warsame codkana waa siinaynaa waana taageersanahay waana soo saaraynaa codkayagana waa siinaynaa hani warsame jaamac waanu haruga shaacinay meesha la yaado irgaabo hadeera waanu shaacinaynaa codkala waa siinaynaa waxa weeye codkana waa ku raacsanahay odayaasheedii baanu nahay waayeelkeedii meel xiil iyo hoba wala garab taaganahay inantaana waa mid u bar hadii aanu tashanay oo tiri iska weydiinay hadaanu nahay waayeelka iyaga Basanbuur waa mid u qalanta beesha Basanbuur inanta la yaahdo hani warsame jaamac oo hore aanu uga shaacinay xusbiga wadani aanu uga shaacinay uguna ballan qaadnay inaanu siinano hiil iyo hooba aanu la garab taaganahay waanu dooranaynaa sidaan horeba xusbiga ugu sheegnay iyadana u sheegnay waa dooranaynaa waana soo saaraynaa codkayaga iyo alafkayaga adduunkayaga mid kasta waa la garab taaganahay qof aan deegaanka kan ama deegaan kasta ka yimaado aan waxba noo qabanayna waxa weeye oo intuu cod naga sii qaato maalin walba aan waxba noo qabanayna mana dooranayno shaqadeena maaha inantaasaan codkayaga iyo adduunkayaga iyo taageeradayada dhamaantayo hadaan beesha Basanbuur oo gudmo deegaanka gudmo biyacas aanu hiil iyo hooba la garab taaganahay dhanka kale waxa iyaguna taageeray musharaxani warsame sulub dhalinyarada iyo waayeelka degmada gudmo biyacas oo ka dhawaajiyay inay codkooda diyaar u leeyihiin hadaanu nahay degmada gudmo biyacas oo aanu codkayga siinaynaa hani warsame jaamac ayaanu codkayga ku taageeraynaa hadaanu nahay oqaal hadaanu nahay codkar hadaanu nahay hadii laba ku roon yahay wax garad aqoon-yahan intayada taageero buuxdaan u siinaynaa oo aanu ugu diyaarnay degmada gudmo biyacas beledka raaxad hadaanu degmada gudmo biyacas galbeed iyo bariba codkayga waa siinay dabadu hayo dhaga hoosti lama galo maanta dhalaarto habla dhalada jooga dhab lagu maqlay carab dhaga wallo hees hani warsama jaama oo xildhibaankii koobaad ee musharaxiinta sanadkan cusub soconaya gudmo biyacas timi xafladeeda lagu qabto koowa cod ninna kala sugi maayo cod anaga u hayna ninna kala baryi mayno xaqna waxa noqotay ragii waanu soo aragnay dumarka inaanu dooranno ba xaqa hiil iyo hoo mid walba waanu kugu garab taaganahay haday cod kartay haday cuqaal tahay haday haween tahay haday caruur tahay deegaanka aad u dhalatay iyo wixii la halmaalaba gacantaasaanu kugu haynaa codka waanu ku haynaa codka maanta adaan ku dooranay anagu rag booma baahnin adiga iyo xusbigaaga baa ku soo dhaweynay bulshada inta la eegay reer gudmo biyacas codkooda iyo cududooda waxay la gudub taagan yihiin hani hadii haniyay beelaha laga yiraahdo hebel baa maqan iyo hebel baan geedkii joogin waxba kama jiraan weey codka waa lagu hayaa diyaar baa lagu leeyahay waanu kula gudub taaganahay degmadu waa degmadaadii ku soo dhawow baan ku leenahay aniga ku hadlay afka dhalinyarada beesha galbeedka gobolka Sanaag waxaan leeyahay cod iyo taageeraba lixaadba inantaas ayaan u haynaa xildhibaanada nooga sharxan golaha baarlamaanka hani warsame jaamac taasoo aan ku taageersanahay hadaan nahay degmada gudmo biyacas degmadaas oo xukunta 14 tuulo 14 ka tuulo codku waa kaaga diyaar qofkii codna weydiistaa tahay qofkii 14 ka tuulo warkay dadka og baa tahay xaaladiisu halkay marayaan qof aan oqoy oo dibadda ka yimaada oo la dooranaya annaga qorshe nooguma jiro laakiin se ka dhibtiyo dheeftaba nala qaadanaya ee codkayaga doonaya oginaanu u baahanahay isla noo baahan ayaanu taageerada siinaynaa ugu dambeyntii iyaguna haweenka degmada gudmo biyacas ayaa si mug iyo miisaan leh dhankooda u taageeray musharaxani warsame sulub waxaana ay sheegeen inay ka haween ahaan metasho anigoo magacayga leena Sahra Yaasiin Muuse
oo ku hadlaya magaca garabka haweenka ee degmada Gudmo Biyo Cas waxaanu halkan taageero mug iyo miisaan la aanu ka siinaynaa Hani Warsame Jaamac musharaxada xisbiga wadani waan ku soo dhaweynaynaa insha Allah taala waana ku gooleysan doontaa walaashay qaal waanu jecelnahay waxaanu doonaynaa aawadeed baan xisbiga ku shubatay baan anaguna ku qanacsanahay oo ku raacnay go'aankeedaan ku go'naa ay obalahay hadaba haniyay guulaysa gaashan ku ka hamdhoco maalin ba wiil balatu ay talada qabo kursiga ku fadhiiso qobkaadi u baad asiiskan ku bariyay tan la hilinoqo asiiskan ku bariyay caalamada bargaad asiiskan ku bariyay cadawgu ku Warsame Kaaf Cabdirashiid Aadan